Bismillahirrahmanirrahiim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafi Show waa 19ka bisha 6 2026 maalinimo Jimcaha marka hore waxaan idinka codsanayaa dhammaan saaxiibada aan halkan ku midowniyo inaad barnaamijka subscribe inoo dhahdaan meel fogna aad inoo gaarsiisaan haddii aad ku cusub tahay marka hore subscribe dhah haddii hore aad noola socoteen like share si aad meel fog u gaarsiiso barnaamijka aynu ku bilownay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa shaaca ka qaaday in Israa'iil ku jirto maalin adag oo murugo leh kadib markii dagaal ka dhacay koonfurta Lubnaan ay xalay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ahaa taliyayaasha guutada iyo 3 askari oo kale sida ay sheegeen militariga Israa'iil iyo warbaahinta gudaha dhimashada waxa ay ka dhalatay taangi ay lahaayeen ciidanka Israa'iil oo la sheegay in ay ku qarxiyeen ama ay qarxiyeen ururka Hezbollah ee Lubnaan wuxuuna ka dhacay dagaalka ayaa la yiri KF-18 ee koonfurta Lubnaan halkaasna waxaa lagu dilay taliyaha guutada 52 ee ciidanka Israa'iil iyo 3 askari oo kale oo magacyadooda aan weli si rasmi ah shaaca looga qaadin iyadoo weerarka uu dhacay xilli ay Israa'iil duqeymo ka fulisay koonfurta Lubnaan oo la sheegay ku dhawaad 30 qof in ay ku geeriyoodeen halka dhismayaal badan oo la deganaa ay weerarada ku burbureen dhinaca kale waxaa qoorta isugu jira taageerayaasha Israa'iiliyiinta gaar ahaan Netanyahu taageere iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wargeyska Israa'iil ka soo baxay ee Hayom oo ka mid ah wargeysyada loogu akhriska badan yahay gudaha Israa'iil oo ay leeyihiin qoys Yahuudi Mareykan ah ee Edelson oo ka mid ahaa dadka dhaqaalaha badan ku bixin jiray taageerada Trump ayaa hadda bilaabay in ay si adag u dhaliilaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warbixin uu wargeyskan daabacay ayaa lagu sheegay in Trump ka baxay taageeradii ay Israa'iiliyiintu ka filayeen isla markaana uu dhaawacay danaha Mareykanka iyo kuwa dalalka reer galbeedka warbixintan waxaa kaloo ay ku dooday in siyaasadda uu Trump qaatay ay hoos u dhigeen sumcadda Mareykanka sidoo kalena wargeyskan waxa uu sheegay in Trump uu haystay fursad uu ku noqon karo mid ka mid ah madaxweynayaashii ugu saameynta badnaa taariikhda balse ugu dambeyn waxa uu sameeyay marka go'aamo uu ku qaatay ama kuwaas oo fashil u keenay in uu ku dhawaaqo go'aamadaas sida ay qabaan waa qaar ka mid ah taageerayaasha Israa'iiliyiinta gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kuwaas oo si cad uga hor yimid waqti xaadirkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sabab la xiriirta inuu Iran heshiis la gaaray